Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Karoon Cabdiraxmaan Faarax waxay ka jawaabaysaa mid ka mid ah wicitaanada macaamiishooda. Helida numberka ama dhakhtarka u baahantiin adigoo jooga goobtaada ganacsi. Markan waa haweeney xaamil ah taasoo doonayso in laga saacido sidii ula kulmi lahayd isbitaalka u baahantahay. Dhakhtarka haweenka oo fariista isbitaalka Hirdamiin oo ku yaala degmada Xamar Jajab ee Muqdisho. Karoon waxay ka mid tahay shaqaalaha shirkadda Balamaha oo ah aragti ay dhalinyaro dhawaan jaamacadaha dalka ka qalin jibiyay ay hindiseen. Dadku waxaan u sheegnaa waan soo dhaweynaa waxaan ku saxanaanaa ku soo dhawaa barnaamijkeedin fududeynaya Balamaha. Qofku waxa siinaa Joyce numberkan u qabaneynaa. Numberka marka uu qamo by email hospitalka u soo digareynaa. Kadib hospitalka marka uu soo digareeyo lacagta hospitalka ugu dhacay anaga lacagta hospitalada wax dhan u tuurana. Qofka hospitalka marka uu already number magaciisa waa la hayaa. Numberkiisa ama number 1 ama number 2 wixii ku soo aada easy u helaa. Marka uu fududeena kaliya intaas oo kaliya ugu saarnaa marka waa 12 subaxnimo ama 6 aroornimo waxaan ku suganahay isbitaalka Soomaali Suudanis oo kamid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Halkan waxa ku sugan dadweyne kala duwan oo isugu jira caruur iyo haween idada ah kuwaas oo safaf ugu jira sidee ula kulmi lahaayeen dhaqaatiir isugu jirta ajaanib iyo Soomaali. Dhaqaatiirtan waxay qaabilsan yihiin cudurrada caruurta, haweenka iyo cudurrada guud. balse markaa ku sugan tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa jira wado kale oo aad si sahlan kula kulmi karto dhakhtar kasta oo u baahan tahay kuwaas oo ka howlgala isbitaalada kala duwan ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaana fududeynaya shirkadda Balamaha taasoo fududeynaysa adigoo oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo inaad la kulanto dhakhtar kasta oo u baahan tahay. Nambarka gaaban ee 2024 ayay badiyaa dadku kala soo xiriiraan shirkaddan oo ah nuucii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay dalka waxay shaqo abuur u noqotay dhalinyaro badan. Bishaar Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka mid ah qaabada maamulna sidoo kale customerskeena qaabada maamulna isbitaalada xawla maamulna waxa siinaa database oo qadariir ay ku dhiibaan kadibna database-kaas waxay kala socdaan report daily oo dadka soo dalbadaya 75% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro sanad kasta kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ka qalin jibiyo jaamacadaha dalka iyo dibaddiisa. heerka shaqo la'aanta dalka waxay gaartay halkii ugu sareysay. Cabdinuur Cabduqaadir Maxamed waa aasaasaha shirkadda Balamaha waxa uu qabaa haddii dhalinyaradu ay u fikiraan si degan ay hindisi karaan shaqooyin u gaar ah. Company wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo ku kooban yahay markii shaqaalaha laga hadlo. Qayb waa customer care oo waxay sameeysaa qaybta macaamiisha la macaamisho oo dadka soo waco ay ka jawaabo telefoonadooda. Qayb waa qayb database-ka dadka ilaaliyo design-ka dadka sameeyo kuwaas kalena qayb kale oo IT ku jirto marka shaqaalaha IT ka kooban yihiin qaybna customer care. Marka sababta keentay in company-gan abuurno waxay tahay waxa waaye ardayda soo qalin jibinayso iyo shaqo la'aan abuur baan uga dhignay marka. Horumarka tiknoolajiyadda ee ku baahay dunida oo dhan ayaa sahlaya in dhalinyaradu ay sameystaan suuqyo hor leh iyada oo laga faa'iideysanayo internetka oo qarniga 21aad si sahlan looga heli karo gobolka oo dhan. Aweys Maxamuud Julcaw, Cable TV, Muqdisho.